لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وبعد فالسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. اخوتي في العقيدة، مرة شرحنا على كلمة من صفات النبي عليه الصلاة والسلام أصابهم أحاول درسي ولا لظى أنا قلت لك درس والله أنا أرجع الله يطبخ، لكن هو كان في السيني ماشي سيبتك واحد waxaan isku dayi doonaa inaan waxoogaa taariikhdii nabiga calayhi salaatu wasalaam masiiradiisiina wax ka nidhaano. waxaanan isku dayi doonaa inaan qaab aan ilqaynayo aanan kitaabka farta marinaynin, inkastoo dadka inta badan codsanayeen kitaabka raxiiq ulmakhtuum la yidhaahdo. aniga sawigala macaan yahayba akram diyaal cumar ee asiira nabawiya saxiixa kiisa la yidhaahdo. laakiin waxaan isku dayi doonaa un bal cumuuman labada kitaab baynuga adeegsanaynaa wixii oo kooban inaynu soo bandhigi doono, waayo siirada nabigu calayhi salaatu wasalaam waxa ay tilmaamaysaa waa diintii oo la dhaqangeliyey. marka waa dadkii diinta dhaqangeliyey nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisii, oo ah sifadii ugu saxsanayd ee loogu dhaqmo islaamka. inaga waxaynu haynaa hadda isagoo qur-aan iyo sunno ah oo qoraal ah, laakiin marka kale waxa weyaan isagoo camaliya oo dad ay matalayaan qur-aanka iyo sunnadii, yani dad ama bashar dhaqankiiba waxay matalayaan qur-aanka iyo sunnadu siday u ekaayeen. saa daraaddeed way fahamkeedu wuu ka dhowiye qofku inuu markiiba suuro fiican ka fahmi karo diintu siday ku faaftay ama wixii ay siday ama risaalada iyo macnaheediiba. waxaan isku dayi doonaa markaasi balsay labada sheekh usoo naqlayaan inta badan inaanu soo guuriyo. haddii ay jiraan mawaadiic ama meelo loo baahanya in gaar loosii tiltilmaamo insha allah haddaynu awoodno isku dayi doonaa. cumuuman culamada muslimiintii markay siirada ka waramayaan waxay u sameeyeen gogoldhac ama hordhac. hordhacaasi waxay ka bilaabaan ama waxay ku tilmaamaan wixii nebiga ka horreeyay calayhi salaatu wasalaam. hordhaca waxaa looga dan leeyahay inay dadku fahmaan bulshadii uu nebigu u yimi caynka u ekay, si aad u garan karto inta ay guurtay bulshadani markii dambe sida u ekaatay. yani waxaad qiimayn fiican sawiri kartaa nabigu calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadii uu soo saaray iyo mujtamacii muslimiinta ee kawilmay sida u ekaadeen inta uu u jiray mujtamacii hore ee jaahiliga ahaa. oo markaad ka jaahiliga ah suuraddiisa aragto ayaad garanaysaa dadkani inta ay guureen inta ay leekay. waxaa kaloo runtii dhadhawaanaya aad garan kartaa maadaama mujtamac noocaa u eegba la raray oo islaamnimadu ay bedelka inta loo ku samaysay inaanu jirin mujtamac dunida ka mid ilaa iyo la rari karo nooca loo rari karo. ay ku xidhan tahay sida alla inoo waafajiyo subxaana wa tacaala iyo sida dadku juhdi uu bixiyo ay dadka diinta kale ugu yeelayaan. qaybtaa hore markay ka waramayaan culamada taariikhda islaamiga ah qorta qaarba sibay u tilmaamaan, qaarkood ilaa aadam bay isku dayaan taarikh muujisa inay kasoo sheegaan. yani min aadam kutubu taarikhin badan oo ka midi nabi aadam bay kasoo bilaabaan, qaarkood waxay ka bilaabaan dhulka iyo cirka iyo sidii alla u sameeyey waka ilaa ay soo gaarsiiyaan. laakiin taariikhahaas hore qadiimka ah waxoogaaba yaro waxyigu sheegay mooyaane inta badan maxfuud maaha. sidaa awgeed labadan kitaab ee horteena yaalla midba inbuu soo koobaya, laakiin waxaa isku dayi doonaa inaan si fudud u wada guud maro. kow, ummadda carbeed iyo dhulkay degto waa dhul macruufa. carabina intan jaziira alcarabiya la yidhahdo inbay taarikhdeeda bandegi jirtay. carabta taariikhiya markay culamadu qaybinayaan ilaa 3 qaybood bay ka dhigaan. carab ay yidhaahdaan waa alcarab albaa'ida ama carabtii tirtiratee hore ee gabowday, waa caad iyo samuud iyo kuwan qur-aanku ka warramo. iyo carab ay ku tilmaamaan alcarab alcaarida oo ah qaxdaaniyiinta nimanka la yidhaahdo carabta gasha. iyo carab almustacraba oo ah kuwii nebi ismaaciil calayhi salaam ka abuurmay ama cadnaan cidda gasha ah. inkastoo culamada badh ay leeyihiin qaxtaan iyo cadnaan labaduba ismaaciil bay galeen, waana sida uu rajaxayo ibn xajar alcasqalaani xafidahu llah raximah llah. alxaafid ibn xajar sida uu rajaxayo isagu wuxuu leeyahay labada kooxoodba
qaxbaan waa min aali naabit bnu ismaaciil buu qabaa, halka ay qoladan kale ka yihiin cadnaan ibnu ismaaciil ay ka galayaan. marka aynu soo koobno had iyo goor taariikhda carabeed marka la tilmaamayo, maalan qaxbaaniyiinta nimanka la yidhahda asal waxa u ahaa yaman, laba qabiilo waaweynna way u qaybsanaayeen, niman ximyar la yidhaahdo iyo niman kahlaan la odhan jiray. kahlaan inta badan waa guureenoo shaam iyo masar iyo dhulkaasi dadkii degi jiray markii dambe ayay u badnaayeen. ximyar inta u badnaa dadka meesha tan ku soo hadhay. carabta kale ee mustacrabka ee cadnaaniyiinta loo nisbaynayo waa carabta markaasi nebi ismaaciil si dhaba uga abtirsata. nebi ismaaciilna waa ina nebi ibraahim calayhim assalaam. nabiyullaahi ibraahimna saynu taariikhda ku wada hayno dhulka ciraaq buu ka soo baxay, ama dhulka ciraaq buu u dhashay, dabeetana falastiin buu u hijrooday, kadibna wuxuu yimi maka, halkan markii dambe laga sameeyey. waxaanu keenay saynu wada naqaano xadiidkii bukhaari ku yaalla ibn cabaas uu warinayo, mawquufka ibn cabaas ku ahaa siduu sheegayey. haweenaydiisii haajiro la odhan jiray iyo ilmihii ay dhashay oo nabiyullaahi ismaaciil calayhi salaam, labadoodaasi ayuu maka keenay. dabeetana maka ayuu kaga tegey isagoo aan waxba uga tegin, uga tegay oo qura sibraar biyaa iyo mid timira, ama laba weel oo midna biyo ku jiraan midna timiri ku jirto, oo u sheegayna inuu ilaahay subxaana wa tacaala amray inuu halkaa kaga tago. sida aynu taariikhda ku haynana waxaa la tilmaamaa ibraahim inta la hubo 4 jeer oo dambe ayuu meeshaasi ku soo noqday. yani markaa hore ismaaciil keenay, mar labaad ayuu yimi oo ah markan ay nusuusta qur-aankii ka warramaysay uu rabay inuu qalo ama inuu gowraco wiilkii ismaaciil ah. falama aslama watallahu liljabiin وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم. مثل الله سبحانه وتعالى كقول رميه ويقول كتاب التوراة هايسته أما كان يمك التوراة كشريعة سفر التكوين كوزنه كشريعين ودورية تبجير مركاها نبي الله إسماعيل marlabaadkii ku soo noqdayna waa markay axaadiista ka warramaysaa inuu yimi oo dabeetana u yimi isagoo nabi ismaaciil ka maqan yahay gurigiisii oo gabadhu qabay uu yimi. dabeetana uu weydiiyey xaalkoodii siduu yahay oo ay sheegatay markaasi in dhib badan ay haysato, nolosha ay cidhiidhi ku tahay, oo yidhi waa tegayaa inankaygii fariintaa gaarsiiyo. waxaa ku tidhahda aabbaha wuxuu ku yidhi caqabada albaabka ama kaabada guriga iska bedel ayuu ku yidhi aabbaha. nabi ismaaciilna markii uu yimi ay gabadhii u warrabtay wuu fahmay aabihii warkii uu uga tegay oo ahaa gabadhan iska sii daa, mid khayr badan maahe. dabeetana waa iska sii daayey. waxaa kaloo riwaayadka xadiidku sheegayaan mar kale inuu ismaaciil yimi nebi ibraahim mar saddexaad inuu ku soo noqday dhulkaasi. marka saddexaadna wuxuu yimi isagoo ismaaciil gabadh kale uu guursado, tii hore u furay. gabadhii kale markuu la hadlayna oo xaalkooda weydiiyeyna waxay ku tiri waa fiican nahay, iyana fariin buu u faray oo wuxuu ku yidhi waxaad ku tidhahdaa inankaygu waa fariin labaad yani gabadhan hayso waraa buu uga tegey. mar afraad bay taariikhdu sheegaysaa, taariikhda sugan ee la hayo axaadiistiya qur-aanka oo ah markuu kacbada dhisayey. ismaaciilna nin weyn ahaa, isaga iyo ismaaciil markay kacbada dhisayeen 4 jeer bay idhahdaan buu nebi ibraahim ku soo noqnoqday meesha iyo markaa hore uu kaga tegey. taariikhda carabeed cumuuman markaynu tilmaamno nebigu calayhi salaatu wasalaam dee wuxuu ka tirsan yahay siduu axaadiista saxiixa ayba ku sugnaatay. ilaahay wuxuu doortay buu yidhi nebi ibraahim, ibraahimna wuxuu doortay wiilkiisi ismaaciil ahaa, ismaaciilla kanaana laga doortay, kanaanana quraysh baa laga sii doortay, qurayshna reer banu haashim baa laga doortay, reer banu haashimna anaa laga doortay buu nebigu lahaa calayhi salaatu wasalaam. markaynu taariikhda carbeed cumuuman eegno waxay iska koobnaayeen qabaa'il bay ahaayeen. 3 meelood baa iyada boqortooya ka jiri jirtay, boqornimo loo caleema saaro. 3 meelood ayay iyaga ka jiri jireen. waa boqortooyadii yaman ka jiri jirtay ee gabowday, boqortooyada yaman oo
waqtiyo kala nooca soo martay taariikhaha laga sheegaana runtii taariikha saawsi sugan maaha laakiin ilaa 4 boqortooyo oo kala dambeeyay baa la sheegaa oo muddo intaasoo qarniya intay socotay inay tirtirantay kuwa ugu dambeeyuun yaman waa ximyar qabiilka la odhan jiray oo ka mida qaxbaaniyiintaasi intay lahaan jireen boqortooyadoodii macruufka ahayd ee ay lahaan jireen boqortooyinkaa wuu sii dambeeyey oo culamaa taariikh ay kusii tilmaamaan inay ahaayeen kuwii markaasi ugu dambeeyey ee ka jiri jiray waddanka yaman oo la soo gaarsiiyey inay yihiin kuwii ay ka dhasheen markaa dunawas nin la odhan jiro yahuudiya mar ka mida intuu qabsaday in najraan oo kristan ahaan jirtay ee lagu laayay waayo culamada qaarkood u nisbeeyaan inay tahay sababtii ay kusoo degtay qutila asxaabi lukhdud naaru daati lwaquud markii xal markaa soo duuduubno yaman boqortooya ka jiri jirtay xiira meesha la yidhahdo ciraaq ka midana boqortooya ka jiri jirtay shaamna boqortooya ayaa ka jiri jirtay xijaas iyadu mar laba boqortooyo caynkaasii kama jiri jirin imaarooyin baa ka jiray baa la iska yidhaahdaa laakiin boqortooyo rasmiya kama jirin marka aynu soo qabanno magaalada maka oo ahayd magaalada aynu odhan karno taariikhda islaamiga ku weyn una baahan waxoogaa yar inaynu ka sheegno iyo qaab nololeedkeedii markiise aynu wada naqaano waa magaalo ku ooli jirtay meel buuraleeya oo 2 buurood hareeraha kaga wareegsan yihiin oo sida bil oo kale ay ku yihiin quraysh baana degtay meesha tan gaar ahaan qusay ibnu kilaab ninkii la odhan jiray oo ka mid ah quraysh nabiga calayhi salaatu wasalaam kuwa ku abtirsada ka mid ah qusay ibnu kilaab ayaa degay meesha tan qusay ibnu kilaab waxay dhahdeen waa ninkii koowaad ee awooda inuu googooyo dhirta kacbada iyo meesha xaramka ka baxda lama goyn jirin dadkuna inaan la goyn bay u haysteen haddana sharcigu saasuu qabaa laakiin qusay ibnu kilaab baa waqtigiisii gooyey baa la yidhi markuu googooyey ayuu dabeetana soo dejiyeyba xaramka gudihiisii markaas buu quraysh u kala tilmaamay meelo ay kala degdegto oo inay xaggan deg in kale xaggan dejiyey in badhanuu dejiyey quraysh maalqabeenkeed iyo dadkeedii hantiilayda ahaa inta badan butxaa u maka ayay degi jireen butxaa u maka waa inta godan baa la yidhaahdaa ee kacbaduna ay agteeda ku taallo marka aynu eegno maka iyo maamuladoodu say usii kala dambeeyeen akhiiran waxa qabsaday nimankaasi quraysh la yidhaahdo oo waday ka yahay ninkaasi la yidhaahdo qusay ibnu kilaab hareeraheedana waxaa deganaa qabaa'il kale oo ay ka mid yihiin kanaana oo ay ka tirsantahay qurayshi waa laf ka mid ah qabiilkaasi kanaana la yidhaahdo qurayshi markaasi waxay noqotay dad isku dayey in ay tijaaro adeegsadaan baamushtar ayuu ahaa awoodooda ugu weyni magaalada maka la yidhahdana si fiican ayay u degeen qabaa'ilkii hareeraha ka deganaana waxay la galeen heshiisyo nabadgelyeed dabeetana tijaaro ayay samaysteen marna u baxda shaam iyo ciraaq marna xaggan yaman u baxda waxay u fakereen tijaaradoodaasi si ay u suurto gooli lahayd dabeetana waxay u sameeyeen wax iilaaf la yidhaahdo oo ah wadooyinka ay tijaaradooda sii marto inay la yeeshaan qabaa'ilka dega heshiisyo nabadgelyo la galaan isla markaasi inay wax cashuuroo kale ah oo ay iilaaf u bixiyeen inay ka siiyaan isla markaasina inay adeegsadaan xataa nimanka madaxda ah ee qabaa'ilkaasi u madaxda ah tijaaradooda inay saham ka siiyaan sheer inay kala qayb geli karaan inay siiyaan si tijaaradooda u socoto camalkaasi matalan heshiisyada la gelaya ee ku saabsanaa tijaarada quraysh ay xooga ku noqotay ninka isna sameeyey waa haashim ibn cabdimunaaf oo isna ka mid ah awowyadii nabiga calayhi salaatu wasalaam yani qusay waa awowyadii hore ee nabiga calayhi salaatu wasalaam oo ninka quraysh maka dejiyey tijaaradooda ninka isugu xidhayna waa haashim ibn cabdimunaaf oo isna ka mid ah nabiga calayhi salaatu wasalaam awowyadii tijaarada oo yani iqtisaadka maka markaynu soo duuduubno wuxuu u salaysnaa kow qaybi tijaaray ahayd sanaacada ama farsamada waxaa la yidhahdaa aad bay ugu yaray waxoogaa hubkay samaysan jireen iyo dharyaha iyo waxoogaa sariiraha iyo guryaha waxaa caynkaasi ka mid a in xoola raacataana way lahaan jireen iyo in ugaarsada
laakiin asaaska dhaqaalada maka lagu deganaa waxay ahayd magaalo tijaareed, magaalo baaca mushtar bay ahaan jirtay. maadaama ay magaalo baaca mushtar ahaan jirtay, baaca mushtarkana asal uu yahay nabadgelyo, quraysh waxay ahaan jirtay meel degan, meeshay degantae maka ahi. dad badanna waxay kula jirtay mucaahadaad ama heshiisyo, waxaanay ahayd in tijaarada waxa ugu badan ay ka shaqayso. heshiisyada ay qabaa'ilka kale la gashayna waxay u fudaydisay in tijaaradooda ay tijaara duwaliya noqon karto, oo ay duwalka kale iyo dhulka kale la bayac mushtarayn karaan. weliba dagaaladii ka dhaxeeyey Persia iyo Romanska ama labadii dowladood ee waaweynaa ee markaa jiray, ina waxay carqalad geliyeen dariiqii iyaga u dhaxeeyey tijaariga ahaa ee isku xidhayay Yurub ama waqooyigaas oo dhan iyo Asia. dariiqa isku xidhaa inta badan Shaam iyo Ciraaq iyo dhulkan baa la mari jiray. dagaaladii labadaa dowladood u dhaxeeyey baa xidhay. taasi waxay sababtay baa la yidhaahdaa in aan dariiqii marka uu aad u xoog bato tijaaradu inay marto. oo matalan Indiya iyo dhulka alaabta laga keeni jiray waxay iman jirtay baa la yidhaha badday soo mari jirtay, Yaman bay iman jirtay, dabeetana Yaman bay maka ka tegi jirtay, makay ka qaban jirtay markaasi Shaam iyo xagga Roman isku ka taliyaan. sidaas daraaddeed waxay noqdeen dad isku xidha mujtamacaad badan oo tijaari ah ayay maka ahayd. reer makana maadaama ay tijaaradaasi in badan ka shaqaynayeen waxay noqdeen dad maalqabeen badan uu ku jiro. oo reer maka rag baa de kibirku gaarsiiyey weelkooda uu dahab wax ku cabi jiray, weelashay wax ku cabaan dahab ahayd. cabdillahi ibnu jadaan nin la odhan jiray koobku wax ku cabaa dahab buu ahaan jiray. marka qurayshi waxay yeelatay tabaqaad kala sarreeya, tabaqo tijaarada raasulmaalka weyn haysata oo heshiisyana kula jirta dowladaha ama qabaa'ilka iyo wadooyinka dadka dega, oo weliba tijaaradoodu qaab sharikaad oo kale ay u dhisan tahay oo ah qaafilo aad u badan la israaciyo oo dadkoo dhanna shares la siiyo laga qaybgeliyo inay tijaarada si ka wada qaybgeli karayaan. oo dadka danyarta aan wax badan haysan ribo wax ku siisa, nidaamka ribowiga ee bangiyadu isticmaala, iyo tabaqaad aan waxba haysan oo aad u fuqara ah oo aad u waxtar aan waxba haysanin. labada kooxoodba way deganaayeen. dekadaha isticmaali jireen inta badan meel shacbiya la yidhaahda ayay ahaan jireen oo ay dekadan jideymka taqaaniina macruufka ah waxay bilaabantay baa la yidhaha khilaafadii Cuthmaan radia allahu canhu ayay bilaabantay. markaasi maki waxaan leenahay cumuuma waxay ahayd magaalo baaca mushtar, oo xaggan xabashida iyo afrikana waxaa ka iman jiray bukuurta iyo dhirtan la shita iyo baalgorayeedka iyo maxaa la yidhaha foolmaroodiga iyo hargaha iyo ninka madoowa la adoonsado. xagga shaamna waxaa ka iman jiray baa la yidhaahdaa inta badan waxa la cuno daqiiqda iyo sarreenka iyo saliidaha iyo khamriga iyo cinabka iyo waxaasina xagga shaam bay uga iman jireen. xaggan indiya ama indiya dhankeedana iyaga waxa uga iman jiray inta badan looxa iyo filfisha iyo bahaaraadka, yani waxyaabahan yaree raashinka lagu darsada tirada badan leh, dharka iyo xariirta iyo waxaan la tolo, weelasha, waxaasina inta badan waxay ka iman jireen dhanka kan indiya. tijaaradaas bay u dhexeeyeen. siyaasadda quraysheedna cumuuma waxay ahayd siyaasad ku salaysan deganaanshiyo iyo in loo dhimriyo iyo heshiisiyo in la galo, oo may ahayn dad dagaal badan. waayo taariikhda quraysh waxay yidhaahdaan qabla intaanu nebigu iman calayhi salaatu wasalaam ee aanay dagaalka u xidhxidhan horteed, taariikh ahaan waxaa loo hayaaba 4 dagaal waxay galeen. 4 dagaalna waa xuruub ilfijaar 4 la odhan jiray. 4 dagaalna inta badan waxaa la yidhaha munaawashaad yaryar baaba iska ahaayeen, yani dagaallo xataa aad u waaweyn may ahayn ee dagaallo waxoogaa loolama yaryar oo aan saa usii badnayn buu ahaa. saa daraaddeed waxaa la yidhahdaa qurayshi intan ka horraysay islaamka may ku badnayn dagaalku. siyaasadooduna waxay ku salaysnayd in dadka heshiis iyo tijaarada in shirka laga siiyo iyo lacag iyo qaabkan fudaydka ah ayay ku salaysnayd. weliba waxa kaloo siinayeyna mudnaan kale waxay deganayd markas diiniyo dadku diin ahaan buu uga dambeeyey. markas diiniya ayay deganayd oo dee diintii nebi ibraahim laga dhaxlay wixii ka soo hadhay meesha uu sii yaalay. inkastoo markii dambe waktigii ay khusaaciyiintu ka talinayeen meesha tan ay diinta qalbeen, gaar ahaan ninkii la odhan jiray camar ibnu luxayi alkhusaaci oo axaadiista saxiixiiba ay ku soo aroortay inuu nebigu lahaa kaa waxaan arkay isagoo naar
ciidihiisa ku daba wareegaya buu nabigu tilmaamaya. yani ahlu naarku ka mid yahay ninka kani. waa ninkii koowaad ee asnaamta keena maka. sanamkii hubal la odhan jiray buu ka soo iibsaday shaam, dabeetana tuurta kusoo qaatoo keenay. kadibna asnaam badan baa la keenay ilaa iyo kacbada agagaarkeeda uu nabigu calayhi salaatu wasalaam ka dumiyey 360 sanam. 360 sanam oo la caabudo. sanamadaas iyo waxaas way tiro bateen. qaarkood dhagxan la qoray bay ahaayeen, qaarkood xataa waxay iska ahayd in meel yaroo buuroo taagan oo dhagaxun ku urursan yihin. maalan sanamadii asaaf iyo naa'ila iyo waa kuwii marwe iyo safo iyo meelaha yaallay, iska kor yaroonoo kursan oo dhagxan saarsaaran tahay ayay ahayd. sanam caabudkan iyo waxa kalena dee sida bukhaariba sheegaya xadiidkii aburaja al-awtaarabi saxaabigii la ohan jiray uu tilmaamayey. waa kii sheegaya yani dadku say sanam caabudkan iyo waxa kan xad bay ka gaadheen uu lahaa markaanu weyno xataa dhagax intaanu ciid isku ururin abaanu neef adhiyo ku lisnaa buu yidhi markay isku dhegna caanaydaadoo kale marka lagu liso isku dhego ciidda yar ay sidii dhagaxoo kale weekaataa waanu sanam ahaan u caabudi jirnay. yani xad markaa xataa dhagax la waayo in aana lagu lisi jiray ciidda inay isu yaro dhegto uun. aad waxaa u batay asnaamtaasi iyo cibaadaadkaasi la halmaala sanamadaasi. markaynu u soo noqonno magaalada maka iyo dhismaheeda iyo qaabkay u salaysnayd, waxaynu leenahay kacbada ay deganaayeen baa dad badan ay kaga dambeeya oo qurayshi manzilo ay ku haysatay. markaynu eegno maka iyo dadkii u kala dambeeyeyna jurhum ayaa taariikhda inta la hayo kuwii ugu horreeyay ahaayee nebi ismaaciilba uu ugu yimi agagaarkooda iyagoo degan. dabeetana khusaaca, dabeetana quraysh baa degtay. quraysh weliba qusay ibnu kilaab ninka la yidhaahdo. markaynu eegno taariikhda maanta la hayo kama badna maalan adabka jaahiliga carabeed iyo waxaa marka la eego ilaa 150 sannadood qabla alislaam. taa macnaheedu waxa weeyaan 400 iyo waxoogaagii meelahaasi ay u badantay taariikhda wixii ka dambeeya si fiican loo hayo ee meesha tan taallay. waxaana bilaabay uu ninkaasi qusay ibnu kilaab la odhan jiray markuu meesha tan degay. qusay ibnu kilaab markuu dhirtan googooyo quraysh meesha dejiyey oo inta maalqabeenkina magaalada meesha gudaheeda ay sii deganayd, gacalladeedana inta aan waxaysan baa inta badan deganayd. wadaa'iftii diiniga ahaydna isaga ayaa reerkeeda u qaybqaybiyey ama caruurtiisii. qusay ibnu kilaab waxa ugu weyne uu meesha tan ka sameeyey waxaa ka mid ahaa daaru nadwa, oo ah guri ay qurayshi ku shirto oo laysugu yimaado oo taladoodu ka go'do. gurigaasi runtii ay yidhahdaan waa waxyaabihii saaciday inay maki ahaato meel nabadgelyo iska salaysan. waayo mar haddii la hayo meel waayeelku inta isugu yimaado lagu shiri karo, arrinta lagu gorfeyn karo, qadiyad kastoo dhacda mar haddii ay soo gaari karto waayeelkoo loo soo gaarsiin karo, waa arrin inta badan nabad iyo xal ku dhammaan karta. qusay ibnu kilaab marka waxyaabaha caankii uu sameeyey waxaa ka mid ahaa daaru nadwa meesha la yidhaahdo, oo uu ka sameeyey guri yar oo xagga albaabka kacbada u furan oo ay odayada quraysheed oo dhaba fadhiistaan oo lagu shiro. waxaa ka mid ahaa inuu liwaaga quraysheed isagu markaasi gacanta ku dhigtay oo inaan dagaal geli karin qurayshe ilaa iyo liwaagan ay hayaan mooyaane. waxaa ka mid ahaa yani xijaabada oo ah furahan kacbada inay iyagu haystaan iyo sadanada iyo cidda u wadaadada iyo intan oo dhan in iyagu gacanta ku hayaan, waa xijaabadii. oo ka mid ah rifaadada waxa la yidhahdo rifaadat alxujaaj, oo ah xujaajtu markay yimaadaan waxa aan waxaysan in diyaafo loo sameeyo meel ay wax ka cuni karaan dadkan soo xajaya. waayo xajku waa cibaadaadkii uu ka tegay nebi ibraahim, marka calayhi salaam ilaa nebi ibraahim saanu baa loo soo xajayey. marka xataa intaan nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam iman waa la xajayey, laakiin xajkii oo la qalbay oo shirkiyaad iyo waxaan diinta ka mid ahayn lagu daray ayaa joogay. marka xujaajta iyo dadkan isugu yimaada ayuu wuxuu samayn jiray diyaafa, meel xawd ay ka cabaan oo biyo uu macaaneeyo, timir iyo zabiib uu ugu daro iyo cunno la siiyo. wuxuu sameeyey yani siqaayat alxaajka, rifaadada, xijaabada, waxaasoo dhanna isaga gacanta ku hayay baa la yidhahdaa, iyo abuurtiisii qaar ka mida buu gacanta usii geliyey. maalan daaru nadwaha uu sameeyo kale baa la yidhaha albaab bay lahayd xagga masjidka kacbada usii jeeda. waa meeshii umuurta dagaalka iyo nabadda iyo waxaasoo dhan lagu go'aamin jiray. waa meesha ay ku samayn jireen cuquudoodii, maalan wixii heshiise ama guur ha noqoto ama heshiisyada dhaqaale iyo waxa la kala baacmushtarka socda ha ahaato. waxaana fadhihi jiray baa la yidhaha mala-ul qowm, madaxii waaweynta reerka nin 40 ka yari ma fadhiisan jirin bay sheegaan culamada taariikh markay ka warwaramayaan. daaru mashhuura bay ahayd.
runtii qusay ibnu kilaab ninkaa la yidhaahdo quraysh ka tirsanaa magac weyn buu ku yeeshay quraysh dhexdoodii caadaadkii iyo dhaqamadii wixii uu gooyo qurayshna diin bay ka dhigteenba in sidooda loo raaco aan waxba laga qasin ama ha noqoto siduu ugu qaybqaybiyey arrimahaasi maamulka ah ama ha noqoto wixii caadiya dhaqan uga tegey tolkii waxay ka dhigteen uun wax diin oo kale ah oo sideeda loo ilaaliyo gaar ahaan nimanka odayada quraysh ninkaas wixii uu go-aamiyey iyo go-aamadii waagaa la qaatay sideeda ayaa loo qaatay isaga dabadiina waxaa soo baxay runtii rag ka mid ah abnaadiisii ama dadkiisii oo ka mid yahay haashim ibn cabdimunaaf oo ka mid yahay almualib oo ka mid yahay cabdilmualib oo ka mid yahay abu aalib oo dhammaantood aan odhan karno waxay sii kala dhaxleen inay sii haystaan wixii uu aabahood ka tegey ee ku saasiibnaa qadiyadaasi maamulka maalan haashim ibn cabdimunaaf ibnu qusay yani qusay waa awowgii waa ninkii bilaabay heshiisyadana in lacag loo qoro dadkan wadooyinka ee tijaaradooda ay martaan ee ilaafka waxaan loo bixiyey ee ka dhigay tijaaradii quraysheed inay noqon karto mid duwaliya oo ka baxsan meesha yaroo dhan waana ninkii uu qoday baa ladhaha ceelal badan buu sameeyey reer mako ay ka cabbaan walaalkii oo almualib ahaa ayaa ka dhaxlay markuu isagu dhintay qabsaday mualib wuxuu ku caan ahaa baa la yidhahdaa nin dulmiga neceb buu ahaa nin akhlaaqda fiican dadka fara buu ahaa nin cibaado badan buu ahaa quraysh markaa oday ay ka dambeeyaan buu ahaa waxaa ka mid ahaa haashim inankuu dhalay ee mualibna adeerka u ahaa ee loo bixiyey cabdilmualib magaciisa caadiga shayba baa la odhan jiray oo waxaa la yidhahdaa haashim ayaa qabtay baa la yidhahdaa haashim markuu guursaday wiil dhalay ayuu ka tegey wiilkii uu dhalay wuxuu kaga tegay yani isagoo yar ayuu haashim dhintay dabeetana odaygan mualibaba waa dambe loo sheegay isagoo wiilkii 6 jir meelaha maraya ama weynaaday wuu doono wuu soo qaaday markii uu keenayna carabtii ama quraysh waxay aragtay wiilka yaro uu sito dabeetana wiilka waxay isaga bixiyeen war waa addoon yaro isagu keensaday bay cabdilmualib bay u bixiyeen yani magaciisa asalkii shayba buu ahaa mualibna waa adeerkii oo haashim la walaala oo soo koriyey markaasi oo keenay dabeetana cabdilmualib wuu iskaga caanbaxay cabdilmualibna waxaa runtii nin aad ugu caanbaxay deeq oo shaybat alxamdi bay markay doonaanna odhan jireen waanu kaloo ku caanbaxay waa ninkii u qoday mar labaad ceelkan zamzamka ah yani zamzamka nabiyullahi ismaaciil ayaa ka tegey laakiin waxay yidhahdeen khusaaca berigii meesha laisku dildilay ee ay arkeen inay ka baxayaan bay aaseen ama dabooleen ama tirtireen marka meesha waa la waayey waxaa la sheegaa inuu riyooday cabdilmualib ilaa 4 jeer uu riyooday markii ugu dambaysayna in loo tilmaamay meeshu meeshay tahay riyadaasi sanad xasana bay runtii ku soo aroortay ilaa caliy bn abi aalib ka soo aroortay dabeetana ceelkan buu u qoday ceelkii zamzamka markuu qoday ee soo saarayna waa muran dambaa ka yimi oo quraysh baa ku qabsatay quraysh markay ku qabsatayna qaab bay u garnaqsadeen cala kulli xaal insha allah waa laga yaaba inay mar dambe aynagu soo noqoto waxaan uga jeednay intan aynu ka warramayno oo dhan cumuuman inaynu ka warranno qaabkay u dhisnayd magaalada maka iyo sidii loo joogay laakiin taariikh ahaan marka laga warramayo taariikhda had iyo goor waxay ka bilaabaanuun nabiga calayhi salaatu wasalaam dhalashadiisii maadaama taariikhdeenu dee nabiga unay ku salaysantay calayhi salaatu wasalaam inta ka horeysa waxaad moodaa inaan wax badan laga sheegin ama wax badan dadku ka odhanin waxa ugu badanee laga warramaa un inay tahay nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo dhalashadiisii mararka ugu badan waxa kale laga warramaa un waa zamzamka iyo sidii uu qodmay iyo in la tilmaamo un ma'aasirtan reerkii uu nebigu ka dhashay inay reer meesha magacaada ku ahaayeen hadduu yahay odaygii qusay ee magaalada degaankeediiyo waxa kan waxaynu naqaanaa nabiga calayhi salaatu wasalaam marka laga warramayo nasabkiisa nasabkiisu 3 qaybood buu u qaybsamaa qayb culamaai taariikh ama culamaai siira dhammaanteed way isku waafaqsan yihin qaybna aad bay isugu khilaafsan yihin qaybna iyada waxa laga sheegaaba waa iska warku tirkuteena 3 qaybood aynu tilmaamayna waxa weeyaan
قيبت إلا عدنان انت اللي قاريه عدنان انت اللي قاريه وكوبي اللباطن أو كترسن كوبي اللباطن كترسن ولما تاريخ تصور سادمان تودو اسكوة وافق سيه يعني نبي قال له رجل محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد المناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر فهر وانك قريش اللي يدعوه فهر مركزي طوان بوكا صوت الصدا حاجة دنبع عدنان يفهرنا طوان خلايسيك لا ترصدا كوبي اللباطن كاس يقول الاسكور وافق سيهي وحانا بلانتين ثابتين marka cadnaan laga bilaabo ilaa iyo nabi ismaaciil la geynayo aad ba khilaaf badan u jira yani taariikh kala badan oo aad u kala gadisan oo aan isku xidhnayn ayaa markaas la tiriyaa laga bilaabo weeyaan cadnaan ilaa iyo inta la gaarsiinayo ismaaciil ama ibraahim حاجة كسي دم بيساند مركا كسي مرن بدن إن النبي إبراهيم وابتر رسالة آدم هتجارتي سنة كتب التاريخ أو كتب السيرة انت هو القرآن مثلا وحنفل يا عيني عدنان مثلا يا إسماعيل ما لها سيلا أفرطن بانو ملايين هنا يوضح حيسيان لكن انت هدن بور دمي اسكا مرن كيدي واسكا تيرا بدنيا سيقورنا وما وضع تلمامنا marka aynu hore uga soconno inta tan waxaynu u gudbi karnaa waxyaaba ugu caansan waxa ka mid ah biiru zamzamka iyo qodistiisa oo aynu nidhi waxa ugu asaxsan riwaayadda ibnu isxaaq laga warinayo ee cali ibn abi taalib gaadhaysa sanadkeeduna xasan yahay ee sheegaysa inuu ku riyooday cabdilmutalib oo marafaadkii loo tilmaamay ama aafaarta sheegaysa wixii uu ka soo saaray kullaha waa riwaayo daciifa bay yidhaahdaan yani waxyaabo badan bay sheegaan oo meesha ka soo saaray oo ceelka markuu qodayo calaamado loo sheego waxyaabo ka soo saaray kuwa aafaarta ku soo aroortoo dhami waa daciif wax badanna runtii ma sheegayaan afarka labaad inta badan la sheegaa waa qisadii waqtigii uu nabigu dhashay calayhi salaatu wasalaam ee caamul fiilka قصة الفيل إذا واحد نقرأ القرآن كالسوي ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل قرآن كأي سوي ولماذا تاريخ بقرطانة وحي كنت المامانين هاي شن بقولية تضباطا أما شن بقولية كوبية تضباطا كي ميلادية ده تاني مكلا مدى كوني يكيو ده مرسا فكي شن بقولية تضباطا قال كنا وحي كنت المامان شن بقولية كوبية تضباطا كي ميل عاسين هاي قصة دوب كده ودن مركي نوسي سوق جينينا وحي شيغيسا يعني بعض الصحابة اي اللي قور ورية لكن صحابة اللي قور ورية وصحابة يرير iyaga iyo qisada tan ilaa konton sanadood meelahaas ay u dhaxaysay laakiin waxaad garan kartaa una aafaar ka hadhayo qisadan la wada yaqaan inay jirto maalan Aisha radiyallahu anha waxay sheegaysaa inay soo gaadhay yani waa sanad saxiix sanad xasan oo ku soo aroortay Aisha kale maalan waxay sheegaysaa inay soo gaadhay oo ay aragtay iyadu maroodigii abrahaminkii waday iyo kii sayska u ahaayay meedmeedi jirayba labadaas oo indhoolayaal magaalada dowrsaday inay soo gaadhay يعني مروديada nimankii wareeyay marka mid weeyaan oo indhoolayaala oo dowrsada inay soo gaadhay مثلا saxaabi yar oo la rajiray Qabat ibn Shaym ba filaya isla wuxuu sheegayaa inuu soo gaadhay inay hooyadii tustay isagoo yar oo caruura hooyadii inay tustay saaladii uu dhigay maroodiyadii nimankaasi wateen oo midabkeedu xataa isbedelay laakiin isaguna وعام الفيل كوحوغا بكوريه يعني ويل يرو وحوغا جرى سنوات ايوها اسنا ترمذي باورينيا على كل حال قرائن بدن بات المامسه اما قصه سيده u dhacday خلاصه القول waxa la sheegay in abraha la oran jiray oo xabashi ahaa markay dhul badan sameeyeen isku dayeen carabtan ku sii socota kacbadan waxa jisay in laga duwo ay u taag waayeen ayuu meel sameeyay meeshii waxay soo wariyeen riwaayadkaas inkastoo aanay xooganayn
إننا عربية كنيسة تسميه كنيسة دي وحن كذا سميه على كل حال واحد استبها تاني كان أبرها الله إلى هذا وكنت لقى لإنه الدولة أو سود ميو أبرها مركا وانين حبشيات أو يمن حكومة حبشيدو لما تشير أي يمن كل بقميستي مركا هو مركا ميدا كوحدة أبرها وشوغا وواقي دنب أيان رجينية إن أبرها وحي كسي دنبيه وحاقب صدي يمن بيرشيا كان النبي عليه الصلاة والسلام مركو صواب حي النبي النميدة اللي بسودة شيء بيرشيا باهيستي يمن إيران باهيستي لأن وقت جاي حبشيدو هيستي ماشة أيو عيدا دري عيدا كاسو وطلق لينو كعبد السود دميو لكن عيدا كاسي مركي يسوق غاري مكان دوليت كده وبالحص ماشا لنا مركو سوق غاري ولا إرادة بي فريستين مروديري marka xagga kacbada loo dareeriyana way fariistaano hadii jiha kale loo sii daayana iska dareeraano meeshii iyagoo joogana ilaahay baa ku soo itaxaamay tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil shimbirahaasi duulaya dhagxanta la dhacaya ayaa yimi shimbirahaasi dhagxantii bay dadkii la dhaceen dadkii badmeeshii bay ku dhinteen qaar waa xanuunsadeen abraha kan waxa la yiraahdaa sanco isagu ku dhintay bay dhaadaan isagoo googo ayagu yimo xanuun kala ku dhacayo dadana meeshaas ku dhintay qisadaasi marka la soo dudubo waxa ay sheegaysaa in la jabiyay in abraha iyo kooxdiisi sida quraanka naskiisa ku cad nabigu alayhi salatu wasalaam waxa lagu tilmaamaa inuu dhashay sanadkaas aamul fiil waxa qisooyinka meesha la tilmaamo kamida nabiga alayhi salatu wasalaam aabihi abdullah abdul muttalib bay waxay sheegaan inuu nadaray nadar kana ibn abbas baa soo arooriyay sanad saxiix ku soo saaray inuu nadaray abdul muttalib waqtiga uu nadaray riwaayad iska daciifa ku soo arooray laakiin marka la isku daro ala kulli xaal mursal صحيح سنة كيسو حسن يهينا وقصة أروري وحا يدنا دودوك كذا الشيء يساوون عبد المطلب مركو زمزم كهلاي قريشتي كلاكو قبصتي قريشتي كو قبصتي وحا لقوه الشيئين لك لا قربحو روايات كاسي قار كمدي وحا يشيئي يعني انو قبتين شام يمن حقا ان لسلا قبتي كاهنة جوكتي هبر فلالولي نيسوك لصارتو dabeetana dhexda markii la soo socday in biyihii madheen waadka qaarkood waxay leeyihiin biyihii oo dhan baa madhay qaarna waxay leeyihiin isaguna biyo ka madhaniyo intii la socday intii haysatay biyo kama madhan markii biyo la waayey kadibna ama fardihii uu fuushanaa mid ka mid ah adinkiisu meeshuu ku dhuftay baa ilaahay biyo ka siiyey rawaa kaloo daciifana waxaan rajaynaya inuu sheegayso roob baa daay mid kastaba ha noqotee biyaa la helay dabeetana dadkii haraadka uu bakhtiyay gaaray mar labaad un baa ilaahay abdul muttalib biyo ku siiyey dabeetana waxay dhahaan ninkan mar dambe alla biyo nagu siiyey ku yaro waxba yana ku qabsanine ha loo daayo zamzamkiisaasaa loogu daayay baa loo yidhi waxay idhaahdaan caruur badan markaa muu lahayn bay leeyihin lagu haystay zamzamkee wuxuu nadiray hadduu xoogaysto ilaahay 10 wiil siiyo rag iska dhicin karo inuu 10 mid ka mid ah ilaahay u sadaqadeeyo 10 mid ka mid ah inuu ilaahay u sadaqadeeyo waxa la yiraahdo 10 wiil baa ilaahay siiyay dabeetana nadarkii wuu qorituuray baa la yiraahdaa qorituurkii wuxuu ku dhacay abdullah dabeetana abdullah inuu gowraco way ku adkaatay dadka bar waxay qisaska qaarkood sheegaan in falalawadu uu geeyo iyadoo ay tidhi u sagayo 10 halaad bay diyadu ahaan jirtay isagii 10 halaad u qorituuro abdullah ku dhacday tidhi 10 kale ay abdullah ku dhacdo 10 kale boqol ay safartay laakiin riwaayada fiicani iyadoo waxay sheegaysaa inuu boqol iyo abdullah loo qalintooray yani loo qorituuray quraan loo sameeyay abdullah iyo boqolka markii loo qorituurayna boqolkii halaad ay quraacdi ku dhacday marka nadarkii wuxuu ku dhacay boqolka halaad la gowraco abdullahina la sii daayo abdullah marka wuxuu u guuriyay inan amina bintu wahab looran jiray tafaasiisha sida loogu guuriyay iyo arrimaha ku saabsan kuma soo aroorin iyaguna طريقة صحيحة أصحاب التاريخ يعني روايات عدو ترى بدن بس كسو أروريان عموما waxaan leenahay wiilkaasi gabadha uu guursaday dabeetana wuxuu qabtay Madiina riwaayada rajaynaya inay xasan tahay baa sheegaysa inuu u diray timir inuu uga soo iibiyo timir ka doono
عبد المطلب ودري مدينة markii uu madiina yimina uu ku xanuunsaday cabdillaahi markuu xanuunsadayna uu geeriyooday wuxuu geeriyooday riwaayadka saxiixisay sheegayaan iyadoo uurka uu ku jiro nabigu calayhi salaatu wasalaam culamaa taariikh qaar baa qisas badan oo kale soo arooriya waqti inuu nabigu uga dhashay intan sare inuu jiray waxaa laakiin inta badan waa iska wada daciif waxaasi insha allah waxa saxiixa inuu uurka isagoo ku jiro uu dhintay nabiga abihi calayhi salaatu wasalaam culamaa taariikhna waxay wariyaan baa islaantii markaa gabayo borordiiqo ay tirisay oo ay odageeda dhintay u tirinaysay nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku dhashay markaasi maka dhalashada nabiga calayhi salaatu wasalaam war badanoo ustuura baa laga sheega warar badanoo aan waxba ka jirin laakiin waxaynu isku dayaynaa waxaasaan waxba ka jirin tirada badan loo dhan inaynu iska dhaafno nabigu calayhi salaatu wasalaam magaalada maka ayuu ku dhashay sanadkaasi la yidhaahdo caamulfiilka caamulfiilkaasi oo u ahaa baynu odhan karnaa irhaas yacni nabiga calayhi salaatu wasalaam alla uu sii muujiyey oo yacni basharkao dhamme qadiyad ay sii fahmeen oo warkeedu dunidoo dhan uu gaadhay oo aad uu gaadhay qaabkii uu nebigu u dhashay waxa ku soo arooro oo dhammi inta badan waa wada daciif iyo mawduuc iyo kadaab wuxuu ku jira waxaan khayr badan lahayn allahuma ilaa xadiid xasana jira xasan ligayrihi weliba isaguna ah oo sheegaya in ay ku riyootay nabiga calayhi salaatu wasalaam hooyadii nuur ka soo baxay oo qusuuru shaam oo dhan ifiyey kaasi waa insha allah xasan ligayri ama waxa laaliya waxa kale ay ku soo arooriyaan ama ha noqoto qaabkii uurka nabiga ay uu siday oo uu fududaayo kanbuu ahaa iyo waxaan may dareemi jirin waxaasoo dhan waa iska uun waxaan sanad badan ama xoog badan loo haynin waxa la mid iyaguna kuwa sheegaya markuu soo dhacay nabigu calayhi salaatu qaar baa le uu soo booday inuu gacmuhunbu dhulka ku taagay laakiin waxaasoo dhan waxba insha allah waxba nabiga ku kordhin maayaan yani waxay dadku jecel yihiin in la buunbuuniyo laakiin buunbuunis risaalada u ah iyo wixii alla uu ku ammaanay siduu u dhashay wax badan waxba ku kordhin maayaan riwaaya daciifa sheega isagoo gudan baad u dhashay iyada lafteedu waa daciif qaar baa sheega malakul jibriil baa guday iyada lafteedu waa daciif qaar baa sheegay inuu cabdilmutalib guday iyana waa daciif laakiin waa iska macquul in la yidhaahdo cabdilmutalib maadaama uu isagu hayay oo aanu aabihii uu dhintay oo oogii aho isagu soo korinayay inuu isagu gudo oo xanaaneeyo oo taas waxa macquul oo sida caadiga waafaqsan ama wax kale la sheegayo oo dhami waa wada daciif waxba kama jiraan waxa kaloo la mida waxyaabaha axaadiista daciifka tirada badan ama mawduuca kadaabinta badan ku jiraan lagu soo arooriyo jin baa yeedhiyey oo wax sheegay ama sanamadii iyo macaabidii wataniyiintao dhan baa daadatay ama boqortooyadii kisre iwaankeedii baa soo dhacay ama buxayradii yareeyay saawo la odhan jiray baa biyo laga waayey ama dajla yani wax badan bay sheegaan laakiin kullu haadihi wax ka soo qaad male saasi daraaddeed waxaasoo dhan waa iska dhaafaynaa waxaynu ku daynaynaa inuu nebigu dhashay calayhi salaatu wasalaam hooyo ilmo caadiya siday u umushayna in loo umulay in nebigu calayhi salaatu wasalaam taariikhdii uu dhashay waxay culammada taariikhda qorays ku wada waafaqsan yihiin waktiga la yidhaahdo caamil fiil laakiin maalin muu ka dhashay waa qadiyad iska muran badan مثلا صاحب الرحيق المختوم wuxuu isagu leeyay mid waa la isku wada waafaqsan axaadiis saxiixa ku soo arooray inuu nabigu isniin dhashay iyada tamuran kuma jiro inuu nabigu calayhi salaatu wasalaam maalin isniinaad dhashay iyada wax muran kuma jiraan axaadiis saxiixina waa ku soo aroortay waana saas bay ku sugan tahay sanadkaasi caamul fiil inuu dhashayna waa inta badan culimada taariikhda isku wada waafaqsan yihiin laakiin goormay ahayd waxa mashhuura oo aad u caan baxday oo dadku inta badan u haystaa inay tahay 12 rabiicul awal waa sida ugu mashhuursan
laakiin wax ku asaxay ma jiraan. ibnu isxaaq ayaa soo arooriyey 12kii rabiicul awal inay tahay. ibnu isxaaqna sanad sugan kumuu soo aroorin dhalashadaasi nebigu calayhi salaatu wasalaam inay 12keeda ahayd. alwaaqidi oo aada uga sii daciifsan isagu wuxuu soo arooriyaa inay ahayd 10kii rabiicul awal. abu macshar sindi ninka la yidhaahdo oo culamaa ilxadiid agtooda isagana daciifka ah, inkastoo ay dhahdaan basiir buu fi lmagaazi ku ahaa sidaa waaqadiyo kale, isna wuxuu soo arooriyey 2dii rabiicul awal. saaxibu raxiiq almakhtuum wuxuu isagu qaatay maxmuud baash alfalaki wadaadka la yidhaahdo taxqiiqiisa sida uu ku sheegay oo ah waxay baadheen isniintu meesha ay kaga dhacaysay rabiicul awalkii sanadka ku beegnayd. dabeetana waxay dhahdeen isniintaasi waxay ku beegnayd 9kii rabiicul awal. qoladaasina iyagu waxay ku tagtay iyagu aan taariikh ahaan daliil soo aroorinayna waxay aroorinayaan ay tahay uun min xayta taariikh isniintaasi goorbay ku beegmaysay ayay eegeen maalmahaasi. dabeetana waxay qaateen inay ku beegmaysay 9kii rabiicul awal. dhankan kale marka la sheega bay dhahdeen waxay ku beegmaysaa 20kii ama 22kii ibriil 571 sida uu qirayo weeyaan moxamed sulaymaan almansufuri. isku soo duuduub waxaa loo badan yahay inuu rabiicul awal qaybteedaa hore waqti ka mida dhashay nebigu calayhi salaatu wasalaam, laakiin bidabdi midi ma jirto. walidalik raggan mawliidka wadwada iyo waxa kani meelaa laba hubin bay u mawliidsanayaan. yani in mawliidsato waxa ka horaysa inaad maalintu inay tahay la garto. laakiin waxay ahayd haddii sunno la rabo in isniintaa sunno ahee la soomo kaasaa ku filan. yani nebigu calayhi salaatu wasalaam marka la eegayo maalan qadiyadda mawlidka ku saabsan dhalashada ku saabsan muu tacdiiminin tii ku saabsanayd taariikhda maalintay ka ahayd ee waxaa la weyneeyey maalinta toddobaadka maalintay ka ahayd. idan haddaad rabto nebiga calayhi salaatu wasalaam weynayntiisii wuxuu nebigu weyneeyey maalintuu dhashay oo isniina. mawlidkeenu inta badan isniinba kuma beego, mar jimcaynu mawlidnaa, mar khamiis baynu mawlidnaa, laakiin asalku waxa weeyaan in la mawlido unbay ahayd maalin isniineed. isniintuna waa inaad soonto, qaabka loo mawlidaana waa kaade qaabka uu nebigu jideeyeyna waxa weeyaan in maalinta isniinta ee wiig walba ku jirta inay sunno tahay in la soomo, wahada yakfiina. ama wax laaliya waxa kale soo aroora isagu wax badan oo sanada ma laha. waxaa timi nebiga calayhi salaatu wasalaam markaa uu dhashay ciddii naas nuujisay, hooyadii mooyaane yaa kale naas nuujiyey. xadiidka saxiixahi wuxuu ku soo arooray marka hore inay naas nuujisay Thuwayba gabadhii la odhan jiray oo ahayd gabadh addoona oo uu leeyahay adeerkii abilahab ninka la odhan jiray ee nabiga calayhi salaatu wasalaam kuwii halka ahaa markii uu nebinimada nabiga la siiyey. markanuu nebigu yaraayo dhashay un dee inaan adeerkii dhalay unbuu u arkayo waa buunbuuninayey. markaas gabadh addoona uu lahaa oo ilmo dhashay oo naas nuujinaysa ilmaheedii buu u keenay u yidhi naas nuuji. waana gabadhaasi tii naas nuujisay xamsana. walidalik baa nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo adeerkii xamse naas nuujinta walaalay ku ahaayeen. xamse iyo nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam naas nuujinta walaalay ku ahaayeen oo labadaba waxa wada naas nuujisay Thuwayba islaantaa la odhan jiray. waxaa timi xaliima sacdiya. qisada dheer ee ay soo arooriyaan asxaabu siira sanadkeeda muran badan baa ku jira, culamo badanina way diidaa sugnaanteeda. laakiin waxaa sugan kollayba in nebiga qabiilkaa reer bani saacad la yidhaahdo iyo islaanta xaliima sacdiya la yidhaahda inay naas nuujisatay iyadoo way sugantay. tan aynu leenahay ibnu isxaaq aynu leenahay qisada dheer ee la tilmaamo waa qisada tan iyadu ee sanadkeeda muranku ku jira. waa qisada sheegaysay nin wakti abaareed ay ahayd oo iyadoo abaar tiro badan ay iska jirto ay gabadhani dumar kale soo raacday, dameer yaroo ay lahayd ay soo fuushay, dameerkeeda tamar darri daraaddeed kolba loo joogsanayay. kadib ay maka yimaadeen, ay isku dayeen inay ilmo ay naas nuujiyaan inay helaan. way carabta caadadeeda waxa ahayd maadaama maka ay magaalo ahayd ahlu xadar oo reer magaala, waxay odhan jireen carruurtu si ay caafimaad fiican u hesho magaalada ha laga saaro baadiyaha ku soo koraan.
caanahana baadiyaha kusoo cabaan waxay u arki jireen carruurtu markay baadiyaha kusoo kobocdo inay adadkaato ay fiicnaato oo kuwa magaalada inay ka wanaagsan tahay saas daraaddeed carruurta inta badan baadiyaha loo diri jiray islaamaha baadiyaha ee naaskoodu irmaan yahayna naaskooday ku xoogsan jireen oo intay magaalooyinka yimaadaan bay kuwa tujaartu dhashay iyo carruurahaasi meelaha ayay odhan jireen keen ilmaha kuusoo naas nuujisiyo kuusoo koriye dabeetana waa lagu maal siin jiray xoolaa lagu siin jiray qisada ibnu isxaaq siduu soo arooriyey wuxuu leeyahay markii ay magaalada yimaadeen ee dumarkii carruur soo wada helheleen moxamed waa la wada dhaafaya baa la yidhi calayhi salaatu wasalaam waayo inan yaro aan aabba lahayn awowbaa waxoogaa ku siin doona oo iska nin aabihiin nooliyey baa la daydayanayay saasi daraaddeed waxay leeyihin waa la iska wada dhaafdhaafay magaalada soo marmarayweelaba wax la dhaafdhaafo aan kan dhaafnaba markii aan wax kala soo waayey ayaan sidhi bay tihi dee faramadnaan hala noqonine haatan wuxuu kusii farlaabo markaasaan iska soo qaatay bay tihi agoonkan yare awowgii leeyahay hala soo naasnujiye saasaan kusoo qaatay bay leedahay sidii baa kusoo baxday laakiin waxay sheeganaysaa markaa iyadu wax badan inay ka aragtay naaskii bay nuujisay oo dabeetana naaskii iyadoo aan waxbaba cunumun buu iska daradaayo isaga iyo kii yaraayo kale la jaqayayba uu ka tiro batay oo xoolahoodii baa ilaahay u irmaaneeyo caanihii iyadoo abaara oo xataa reeruhu yidhaahdaan dadka kale war maxaa halka reerkani xoolaa daajista idinla u soo daajin weydeen waa lala soo daajiyaa un dadka kale oo waxba kuwooduma soo faa'iidaan ee uun islaantan xoolaheedunbaa darara barakaadkaa tirada badan leh adigu nusuusta sheegtaa waa ma xoog badna sanad ahaan ma xoog badna culamadana wax badan bay ka sheegaan laakiin in ay xaliimi naas nuujisay iyadu way sugantay xaliima saadiya islaanta la yidhaha inay naas nuujisay riwaayaadka sheegaya axaadiista waa sugan yihin insha allahu tacaala intii ay islaantan uu la joogayna nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa dhacday mucjisadii laabtiisa dilaacinta ah nabiga calayhi salaatu wasalaam axaadiista saxiixa iyaduna waxay sugaysaa 2 jeer in jibriil uu qalay mar waa markii isra wal mi'raajka marna waa markan uu yaraa markan uu yar yahay ee uu qolada tan la joogay xaliima saadiya gurigeeda uu joogay waxa ay nusuustu sugaysaa in nabiga calayhi salaatu wasalaam oo ciyaal kale la cayaaraya sida xadiiskii saxiixu muslimkaba ku yaalay inuu jibriil u yimi isagoo ciyaal kale la cayaaraya dabeetana jibriil inuu legday inuu dabeetana laabtiisa dilaaciyey in qalbigiisa wadnihiisa la soo saaray wadnihiisa dabeetana calaqa xinjir yar inuu ka soo gooyey xinjirtaasi inuu yidhi waa xaddu shaytaani minka waa qaybta shaytaanu nafta ku leeyay yacni qof kastoo bini aadama malaguna waa la xidhiidhaa shayaaiintuna waa la xidhiidhaa lama khayrka lagala xidhiidha iyo mid sharka lagala xidhiidhaa jira kaa sharka lagala xidhiidha markaa nabiga isaga laga saaray calayhi salaatu wasalaam jibriil markaa wuu qalay wuxuu ka soo saaray wadnihiina calaqada yar xinjirtaa yar buu ka tuuray dabeetana wuxuu ku sheegay inay tahay xaddu shaytaani mink wuu maydhay tisti dahaba oo maa u zamzam ay ku jiraan ayuu ku maydhay dabeetana uma la'ama dib buu isugu geeyey meeshiisii buu ku celiyey serjarigaasi ama qalliinkaasi waxaa sameeyey malakul jibriil axaadiis saxiixaana ku sugan inuu jibriil u sameeyey qalitaankaasi carruurtii yaryaraydna waa carartay markaasi oo islaantiiba u tageena waxay yidhaahdeen wiilkii yaraa la dil oo dee waxay arkeen halkaa isagoo lagu legdayey waa markii dambe islaantii soo carartayna waxay u timi nabiga calayhi salaatu wasalaam oo midabkiisii isyara bedelay ila waa nin qalliin lagu sameeyey dabeetana anas ibnu malik oo xadiidka warinaya wuxuu leeyahay tolmadii raadkeeda waan ku arki jiray buu yidhi nabiga calayhi salatu wasalaam anas waa ninkii wiilkii yaraa ee u shaqayn jiray nabiga calayhi salaatu wasalaam markii uu nabigu u hijrooday madiina 10 sannadood oo madiina joogu nabiga khaadimo ahaa anas ibnu malik saxaabiga la yidhahda markaa wuxuu leeyahay nabiga waan ku arki jiray buu leeyahay halkii uu ka tolay malakul jibriil khaydka waan arki jiray buu yidhi meeshaas xaliima saadiya markii ay aragtay in wiilkii dee arrimahan inay ku soo kordheen bay u cabsatay dabeetana way soo celisay masaladaa sheegaysa inay u cabsatay musnadu imaamu axmed bay ku soo aroortay laakiin sanadka ayaa laftiisa wax laga yara tilmaamaa nin baa la yidhaha mid la soo cancaneeyey baa ku jira insha allah sanadku waa xasan haddii ninka cancanadiisa oo tasriixa la helo calaa kulli xaal islaantaasi waxay ka cabsatay maadaama ay aragtay wiilkii wixii ku dhacay oo dhan
way cabsato wax istiriilmaa iyo wax ugu noqonin haddaba reerkoodii isaga celi dib bay u soo celisay waxay keentay markaasi magaaladii Maka ahayd ayay ku soo celisay waxaanay gacanta ka gelisay markaa reerkoodii hooyadii baa gacanta laga geliyey hooyadiina markii ay muddo yar haysayba way geeriyootay waxay qabatay baa la yiraahdaa Makay soo kaca Madiina soo qabatay iyadoo rabtay abtiyaasheeda ama wiilka abtiyaashiina inay soo tusto isla markaasi inay soo eegto xabaashii odaygeeda dabeetana markii ay ka soo noqoto ay dhexda soo socoto ay dhexda ku gooday sida culimada taariikh sheegan alabwa meel la yiraahdo Makka iyo Madiina dhexdeeda ayay nabiga calayhi salaatu wasalaam hooyadiina ku dhimatay halkaas waxa ka soo qaaday gabadhii khaadimada ahayd ay nabiga markii aabihii dhintay wuxuu uga tagay baba la yiraahdaa 5 neef oo geel filaya iyo yaro adiya iyo islaan madow oo Ummu Ayman loo oran jiray oo nabiga calayhi salaatu wasalaam tiisoo xaadinada ahayd ee soo korisay marka Ummu Ayman iyo Abdul Muttalib oo odagii hayay iska hayay saas baa Abdul Muttalib ku hayay ilaa ay isaguna intii uu ka geeriyoonayay waxa la yiraahdaa 8 jir meelaha markuu ahaa iyadana sanad saxiix kuma soo arooreen oo culimada taariikhda sheegtaan 8 jir meelaha markuu ahaa uu geeriyooday Abdul Muttalibna markaas baa lagu wareejiyay adeerkii Abi Talib nin xoolo badanna ma ahayn laakiin nacruur badanna uu ahaa mana xoolo badnayn haddana nabiga calayhi salaatu wasalaam muddo aad u badan ayuu maciisa ahaa ilaa iyo intuu dhowr iyo 40 jir gaaray nabiga calayhi salaatu wasalaam si weyn buu maciisa u ahaa in badanna uu la soo wax ka soo rabay inkastoo ilaahay ku anfacin diintiisii waanu rumaynin Abi Talib isagoo 40 sano nabiga u soo gargaarayay ku dhow haddana gaalnimo buu ku dhintay ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ومركي ودن بيسوي دمني وقولها كلمة أنا لا هي آخر وحقوق يديون به لا إله إلا الله كله مركو سراد لا إله إلا الله دنا هوار طبيعة بجهل وما شفت يا إلى دوات عيبه يسمى ما أنت أدري أن كي يرفع هذا يقول قريش وضيق دبر في الدنيا ساتنو أو كاسو وصاري كدبنا قال ما دي بس كذا وأنا كل النبي عليه الصلاة والسلام عيد قال النبي الشفاعي دون يسجد لكن شفاعة سمن نقول سمد نار لغا صاره waxa naarta kulul weyn baa laga geenayaa iyo waxa loo geenayaa naar yar oo laba kabood oo naar loo gelinaya laakiin waa laba marka loo geliyo buu nabigu yiri madaxiis yani bahdah min an-nar ila qoobka naar joogta urado ama kaba noqdo wax laga noqday ayaa la gelinaya laakiin taasa madaxiisu ka fakhlaynaysa xagga sare waa cadaabkaas oo Abi Talib gelaya noocaasiya idan ninkii kaalmo ku dhintaa abahay baa sheekh ahaan jiray iyo adeeraday baa awliyaha waxba ku helimaysa dana dadku mid khayr qabaan noqonay walidaalika baa quraanku wuxuu kala inoo tilmaamayaa wade nabi wiilkiisu ahlu naarka kamid yahay nabi nuux soo quraanku inoo sheegay wiilkiisii u taag waayay oo la hawar kale aniga soo raacay doon soo raacay alaaburta ka fuulaya iska tag quraanku wuxuu kala inoo sheegaya nabiyo haweenkooda ahlu naar noqonayaan xaasaskooda markay raaci waayeen وك امرأة نوح وامرأة لوط كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتهما فلم يغني عنهما شيئا وحكى له عكس القرآن كونه شيئا هوان إله الرميي الرقود قالها يقول الجنة الجلية وامرأة فرعون إله آيات كاسك الرمية إذن أبي طالب بان مدسوه هي أبي طالبنا قصص بدن بالغ شيئا انتو النبي هي